Qiimaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska ee Ukraine iyo cara ka dhalatay waxa ay u arkaan ballanqaad fashilmay oo Mareykanka ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo dhamaadka dagaalka si ay xaaladda ugu sareyso ayaa ku riixday dadka xagjirka ah ee Ruushka inay cadaadiyaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu ka tago diblomaasiyadda oo uu kordhiyo dagaalka. Baaqyada ku aadan tallaabooyin adag ma aha kuwo cusub. Codadka qarannimada u janjeera ayaa muddo dheer ku baaqayay abaabul buuxa, burburinta xarumaha Midowga Yurub iyo dowladda Kiev, dilka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo weerar lagu qaado warshadaha Yurub ee sameeya droneska. Qaar ka mid ah kuwa adag ayaa xitaa ku baaqay in Kremlinku tixgelinayo isticmaalka hubka nuclear-ka ee heerka yar. Si kastaba ha ahaatee, weeraradii qotada dheer ee Ukraine bishan, kuwaas oo ay ku bartilmaameedsatay Moscow, St. Petersburg iyo Kremlinka, iyo sidoo kalena laba weerar oo uu Ruushka ku sheegay inay ahaayeen kuwo dhimasho sababay oo lagu qaaday basas rakaab, ayaa sii xoojiyay oo adkeeyay dalabaadkaas. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in hadallada sii kululeynaya ay ka turjumayaan walaac sii kordhaya oo ku saabsan baaxadda iyo saameynta weerarada droneska ee Ukraine, iyo dood ballaaran oo ku saabsan sida uu Ruushka oo leh dhul aad u ballaaran uu isaga difaaci karo isla markaana uu sii wadi karo himilooyinkiisa dagaalka ee ku aadan ama uu bilaabay 2022.